بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan ka galaynaa maadada اللغة العربية للصف الثاني الثانوي. luqadda carabiga maadada ayaan galaynaa galaaska labaad ee dugsi sare leeligeeda ayaan galaynaa. أسئلة وأجوبة سؤاalo iyo jawaabooyin ku saabsan limaadati اللغة العربية ayaan ka galaynaa hadduu Ilaahay idmo. الوحدة الأولى cutubka koobaad الشعر الجاهلي ayuu ka hadlayaa shicirka jaahiliga وأغراضه ujeedooyinkiisa وخصائصه iyo khasaa'istiisa. الدرس الأول cashirka koobaad مفهوم الشعر الجاهلي shicirka jaahiliga mafhuumkiisii laga fahmay ayaa cashirka koobaad ku saabsan yahay cutubkan koobaad. nashaa اثنين waxqabadka labaad nujiib waan ka jawaabaynaa can الأسئلة الآتية su-aalahan soo socdo. kow ma lmaqsuudu maxaa loola jeedaa bishicr الjaahiliyi shicirka jaahiliga maxaa loola jeedaa gabayga jaahiliga maxaa loola jeedaa waa kana jawaabtii. huwa asagoo ashicru waa gabay alladii qiila la yihi fi lcasri aljaahiliyi xilligii jaahiliga gabayga la yihi ayaa la yihahdaa shicr aljaahili. labo xadid xadee macna aljaahiliyati jaahiliyada macnaheeda xadee fi lcasri aljaahiliyi casrigii jaahiliga ku xadee zamankii jaahiliga ku xadee xilligaas jaahiliga casrigeeda maxaa loo yaqaanay jaahili macnihiisa. waljaahiliyatu jaahiliyadu macnaheeda laysad maahan mushtaqata mid laga keenay oo laga soo goostay min aljahli jaahilnimo alladii jaahilnimadaas huwa asagoo didulcilmi cilmiga kasoo horjeeda ma ahan buu ku leeyahay. jaahilnimadii aqoonta kasoo horjeeda ma ahan. wa inamaa in kale maahane hiya ayadu ma'khuudatun waxaa laga soo qaatay min aljahli jaahilnimo oo yahay bimacnaa assafahi caqlu naaqusnimo walqadabi caro walxumqi doqonnimo. midda doqonnimada iyo carada ahayd ayaa loola jeedaa midii aqoon darada ahayd ma ahayn aqoon la-aan ma ahayn. saddex yajmacu wuu kulminayaa ashicru aljaahiliyu shicirka jaahiliga wuu kulmin suwaran suurooyin waalwaana midabyo ama noocyo mutacadidan kala gadisan. famaa hiya maxay tahay waa kana jawaabtii. yajmacu wuu kulmin hada allownu noocan ashicru shicirka calaa malaamixi muuqaalo akhlaaqiyatin ee akhlaaq ah wa culuwi lixsaasi iyo dareen sarreeya alcarabiya carabiga alqadiimi horreeyey. afar idaa aradta haddaad doonto an tatacarafa inaad garatid calaa xayaati aljaahiliya nolosha jaahiliga inaad garatid ilaa ayna tarjic xaggee ula noqonaysaa. narjicu waxaan ula laabanaynaa waa kana jawaabtii. narjicu waxaan ula laabanaynaa ila shicri aljaahiliyi shicirka jaahiliga gabayga jaahiliga ayaa ula noqonaynaa haddaan rabno inaan ogaano dadkii jaahiliinta noloshooda. liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa diiwaana cilmihim cilmigooda aqoontooda diiwaankooda waxaa ahaa shicirka jaahiliga ayuu ahaa. wa muntahaa xukmihim xukunkooda meesha ugu dambeeyana shiciruljaahiliga ayuu ahaa. halkaasaa marjic ah marka loo ogaanaya carab waxay ahaan jirtay. shan su-aasha kale oon ku jirnay ka jawaab su-aalaha soo socda. limaadaa xadiya muxuu u helay ashicru aljaahiliyu shicirka jaahiliga muxuu u helay bihadihi alqiimati qiimadan muxuu u helay alwal manziliyati iyo manzilida manziliga darajada ah qiimada iyo manziliga iyo manziliyadan muxuu u helay shicirka jaahiliga ah waa kana jawaabti. wadalika arrinkan bisababi xaajatihim baahidoodii weeye ashadiidi darneed u baahdeen alladii kaasoo kaana yuclaa mid ku saramariya min sha'nihim arrimahooda wayurcibu cabsi geliya acdaa'ahum cadowgooda cabsin gelin jiray. shicirka markay cadowgooda u tiriyaan cadowgu ka cabsan jiray arrimahoodana kor buu u qaadi jiray. saasoo marka keentay inuu helo shicirka jaahiliga qiimo iyo manziliyad. number 6 hal lishicri الsoomaaliyi shicirka soomaaliga ma leeyahay qiimatun qiimo ma leeyahay midla qiimati shicri alcarabiyi shicirka carabiga qiimihiisoo kale ma leeyahay. hadduu haahiya cala lijaabati kajaabadaada cilade nacam ha hadhe lianna shicra asoomaaliya shicirka soomaaliga yaxmilu wuxuu wataa fii dayaatihi gudihiisa alcadiida wax badan oo min alaqraadi ujeedooyin ashicriyati ee shicri ah shicirka loo nisbeeyey oo min gazalin shukaansi iyo wahijaa-in caay ah iyo warithaa-in baroordiiq iyo wasfin tilmaan iyo wamadxin ammaan intaas wuu kulansadaa buu kuleeyahay shicirka soomaaliga ah ama gabayga soomaaliga sidii kan carabtoo kale u ahaa mid kulansada intii oo kale wuxuu kulansan jiray asna shukaansi iyo caay waxbaa lagu caayi jiray gabayga carabta ah waxna waxaa weya lagu shukaansan jiray oo gabdhahana waa lagu ammaani jiray. waxaa kaloo gabayga carabta lagu sameyn jiray baroordiiq oo meydka iyo dadka markuu dhinto way u baroordiiqi jireen. waa wasfin tilmaam waxay marku tilmaami jireen waa madxin ammaanna waxbaa lagu ammaani jiray. sidoo kale soomaaligana saas shicirka soomaaliga sidoo kale u ahaayo waxbaa lagu ammaanaa waa lagu baroordiiqaa waxaa weeyaan inta waa lagu shukaansadaa waxbaa lagu ammaanaa waa sidoo kale waaye waa gartay. wayuqadaru soomaaliyuuna wayuqadaru way qadariyaan الصوماليون ويقدروا ويقدريان ويقدروا ويقدريان
الصوماليون الصوماليون توي قدريان شعرهم شعركooda ayay qadariyaan ويقدروا الصوماليون الصوماليين شعرهم ayay qadariyaan ويلمون way garanayaan bihi shicirka ilmaaman garasho kaثيرا fara badan aad bay u garanayaan shicirka ujeedadiisa iyo tiritaankiisana way yaqaanaan nagmul waan dhamaystiraynaa alfaraqaati meelaha bannaan al-aatiyata soo socda bima yunaasibuhaa wixii munaasab u ah العصر الجاهلي عصر الجاهلي هو حويان هو الدعوة ويرسل الطعام السويرو السجل الحقيقي ديوان كدبتا للحياة الجاهلية جاهلية نولشيد أسقناتي هو أسو على هيئة وقاب جماعات جماعيين منظمة امتحان تحترف كشقيسة الزراعة بيرو والرعي الراعتان والصيد وغارسشو حوية ديوان حقيقية حياة للحياة الجاهلية أسقناتي وحوها qaab wuxuu ahaa jamaaco oo munadamo ah oo isku tixan oo markaas taxtariif ku shaqeysata aziraacata beero warracyi raacitaan iyo wasayd ugaarsasho carab waagii hore waxay badnaayeen dadka badwiyiinta ay ahaayeen ugaarsasho iyo raacitaan iyo berley ayay ahaayeen الشاعر شاعركي الذي شاعركاas madaxa amaanay almuxallaqa ninka muxallaqa ahaa oo gabdhaha u joogay dhowrka ahaayo oo la guursanin gumaystayaasha ahaa ninka amaanay wuxuu ahaa الأعشى نك اللي يراد أيها قيس الأعشى نك اللي أورنجري أعشى نك اللي أورنجري قيس نكاس أيها محلق أمانة محلق أصلا أورق قبل هذا يجوريس فدين شرتوا اللي جورسانين جوميستا كنا قطع جوميستا ياللي يراد الله يقانا قبلها جور كراجة أيها جوميستا يال اللي يشري جوميس ياللي يشري جوميس مرة قبل ساسو كلو جوميس أيها أوتشو يشريو مرة دمبا نك محلق أيها نك محلق بالأونشري مرة قبلها دالي أعشى ninka أعشى li yiraahdo yimido ninkaas marka markuu amaan kadib waaba la guursaday wali waxa guursaday madaxdii marka joogtay ayaa guursaday nashaad 4 wax qabadka afraad nadkuru waan sheegaynaa mufrada kulla jamc kasta mufradkiisa ma yaati wax soo socda ko cawaanisa waa jamc mufradkeeda caanisatun waaye waxa weeye cawaanis waa guumeys gabdhaha guumeysta ayaa cawaanis li yiraahdo waa jamc mufradkeeda caanisatun waa guumeys labo albasamaat farooyin basmatun waa far فروين وفرها وحويان جمعودا مفرد كيسنا وحويان بصمة وي فر ميزات وحويان فروين أما تلمامو ميزة تلمان أفر سادات وحويان مدنيال سيد ومفرد كي مدن واي سيد مدن ومفرد كي ساداتنا وجمعية مدنيال وي مفرد كيسنا والسيد مدن الأدناب سينو مفرد كيد وحويان ذنب سين الصحاري وميلها بنان صحراء لما دقا يا جليل هذا صحراء وماشي صحراء وكلية مفرد كيد وميل بنان وي نشاط 5 وحقبة كشنات نشرح العبارة الآتية أيان شرحنا شرحا موجزا شرح قابا لسو قابي أيان شرحنا له كان الشعر وحوها علم قوم شعر وحوها قوم علمي يسويوها لم يكن لهم مسغنان علم أصح حوك أنصح أحسن منه حقوده كان الشعر وحوها في الجاهلية في عند العرب أكتيدا مكانة أيوكلها مرموقة سريسة به شعرك حقيس يأخذون وحكو قبسن جرين قادن جرين وحكو قبسن جرين وإليه شعرك حقيس يصيرون إبهان جرينو أصدق أيي وحكسوا لكلاسوا دنبل جرين وحكو حكومي جرين واقرتي تقويم الدرس قيمانة 10 لنتأكد سأنه بنا من الإجابة جوابت عن الأسئلة تنكوه من السؤال التقويم قيمانة الآتية الصوصعودة أولا نجيب وانك جوابينا له أولا نجيب وانك جوابنا عن الأسئلة الآتية سؤالان سوى صعودة كو تحدث كشيكي باختصار سكوبا عن نشأة بالله الشعر الجاهلي الشعر الجاهلي كما يشوك بالله كشيكي بكلية سكوبا ولم ينشأ وحيي واكنا جوابته ولم ينشأ من بالله من حديثا مردو كما يتوهمه سوم لنا بعض الناس تذكار كيس ولكنه شعر واي عريق نشأة بلوغي سوفقهي ولا يقف كما استاغيو عمره داديس على 200 عام لو بقول السنة wuxuu ku leeyahay fakir fiiri can madaa taqyiiri shicirka bedelkiisa intuu la egyahay masiirata socodka xayaati mujtamaca nolosheeda socodsiintiisa wax ka bedelitaankiisu ka bedelay intuu la egyahay ka fakir buu ku leeyahay oo fiiri mudallilan adoo daliilsanaya calaa maa taquulu waxaa leedahay weliba wuxuu ku leeyahay fakir oo fiiri can madaa dheerarka taqyiiri shicirka bedelkiisa ama doorsoonkiisa masiirata
socodka xayaati mujtamaca nolosheeda oo socodsiinaya wax ka bedelaya bal wuxuu ku leeyahay fiiri intuu la egyahay mudallilna adoo dalisanaya calaa maa taquulu waxaa leedahay wuxuu ku leeyahay والشعر شعرك قادر هو أودا والشعر شعرك قادر هو أودا على تغيير بدلتان قناعات الكثيرين كوا بدن قناعوين كودين بدلوا والشعر شعرك قادر متكروي والشعر شعرك قادر متكروي على تغيير بدلتان قناعات الكثيرين كوا بدن قناعوين كودين بدلوا ومن ناس كميدا وذلك أرنكاس مما قاله وحيرو الحضيئة نيك حضيئة اللي يرادو نيك حضيئة اللي يرادو وحيري ayaa ka mid ah buu ku leeyahay wadaalika arrinka waxaa dhahdaa fakir sheeg buu ku leeyahay ku fakir fiiri can madaa taqyiir shicri shicirka doorsoonkiisa ama bedelkiisa intuu la egyahay masiirata weliba socodka xayaati lmujtamaci bulshada nolosheeda socodsiintiisa intuu la egyahay bedelkeeda shicirka intuu wax ku bedelaya fiiri buu ku leeyahay mudallilan adoo dalisanaya calaa maa taquulu waxaa leedahay والشعر قادر وحو أود على تغيير بدلتان قناعات كثيرين كوا بدن قناعوين كودا إنه بدلوا من الناس كمدا وذلك ما قالوا وحو يري الحضيئة شاعر كحضيئة وحو يري عن قبيلة كيري كان الناس ضدك هايين قبيلة لاسو يستقدرونها كوا قروما يستو يسا ويسي جرين بسبب اسمها بكو يسي جرين سبب مقعيدة ولا يراد بني أم في الناقة ilma sana halaalayaal baa dhihi jiray ilma sana halaalayaal baa dhihi jiray ilma sana halaalayaal baa dhihi jiray bani am fi naaqati baa lagu magacaabi jirayo marka magacaas la sheego dadku waa qurmaysan jireen marka dadkaas ay ahaan jireen uma madaxahu wuu amaanay xudayata ayaa amaanay wajacala wuxuu ka yeelay ismaha magaceeda fakhran wajacala wuxuu ka yeelay ismaha magaceeda fakhran faan yaftakhiruuna bihi ku faanaan hashay ka carar magacii ka carar jireen oo ahaa ilma sanku halaalayaal la dhihi jiray marka wuxuu noqday magacii saas ahaa ay ka carar jireen amaan buu noqday ku faani jireen wajacala ismaha wuxuu kale fakhran yaftakhiruuna bihi bayna alcarabi ku faanaan carab dhexdeeda وكان شعر كفتري قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب وحير قوم وهم أيوة الأنف الصنعة قوم هم أيوة الأنف الصنعة والأذناب سيمهين غيرهم غير كذيهين ومن روح يساوي لسم كرا بأنف الناقة هشة سن كذا الذنب السين سنت طبعا هشة كتال سنك أو هشة أو وجهك كيال يا سمي كرا بكلية لما سمي كرا سنك أف كيال سنك وجهك كيال ده يا سرية saasay marka nimankaas magac ku yeesheenoo ay marka ka bacdi ay dadka ugu faani jireen oo shicirka saameynta ku yeeshay isbedelka ayaa ku tusinaya ilaa ayna intaha xaalo cawaanisil muxallaq ninka la oran jiray gabdhihii gumeystayaalka u joogay oo la guursanin maxay ku dhamaaday intaha u dhamaaday xaalo cawaanisil muxallaqi ninka muxallaq la oran jiray gabdhihiisa aan la guursanin oo guurka ka raagay muxuu ku dhamaaday biziwaaji guur waa la amaanay ninba amaanay ninka markuu amaanay shaacirkii amaanay kabacdi waa la guursaday mawliba madaxda carabta guursatay afar mal qiimatu lughawiyya qiimada lughawiyya muxuu yahay ashli shicr jaahili usugnaaday qad jamaca wuu kulmiyey min almacluumaati shicirka jaahiliga wuxuu kulmiyey macluumaad aqoon buu kulmiyey ashay ayuu ka kulmiyey alkathiira badan xataa sumiya inta lagu magacaabo diiwaan العربي عرب ديوان كده نأتي والله إيماننا بما يرادف وحا لمدك الكلمات الآتية ريان صوص عضا وحا لمدك يلا إيماننا كو سملقة إرقل إلى هرتو ولها عدة معاني بدن بلية معنى بدن وتطلق حالين هذا وحلو مقعاب وتطلق وحلو إطلاق حالين هذا على المنحرفين كوا اللحظة عن جادة الصواب سيدة توصن كوا اللحظة أيها سملقة لهذا لابو تفحق تمتلئ بحسم يواي الأذناب الأديال سيما واي عريق وحويا أصيل أصل أهواي oo meel asal uu ka soo jeedaayo meel dhaxdhaxay waxa ka soo leexda ma ahan waa asal bal lagu leeyahay qofkaan ariiqun nasabkiisu mid asal weeyaan marka asiil waa asal weeye makaanatun waxa weeyaan waa darajo manzilatun darajo weeye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam waxaan marka aan meeshan ka soo jeedinay wixii qalad oo ka dhaca waxa weeye xagee ka ahaatay wixii wanaagana ilaahay ka ahaatay wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh